maxaad ka ogtahay nolosha aabihii la magac baxay halyeygii dhabta ahaa? masaafadhan 23 kilomitir oo u dhaxaysa gurigiisa iyo goob ay wax ka barato gabadhiisa yar ayuu maalin walba si joogto ah ugu kaxeeya ama ugu qaadaa baaskiil ilaa markii dambe dhakhaatiirta laga wariyey aabahan in kaliyihiisu ay fadhiisteen. waa halyey galay aabihii ugu wanaagsanaa taariikhda wadanka Afghanistan, inkastoo Daalibaanka ka taliya wadankaasi lagu eedeeyo bahdilka dumarka. si aad ula socoto sheekadan dunida oo dhan ka yaabisay, fadlan like saar bogga wariye Xamse Raadiye siina sheer garee warbixintan. Tani waa sheekada Aaba May Khan oo u dhashay wadanka Afghanistan. si xoogan ayuu u qabsaday baraha bulshada, si gaar ah warbaahinta dunida ayaa tabisay sheekada la xiriirta gabadhiisa. aabahan waxa uu degan yahay deegaan yar oo dhaca koonfur bari ee gobolka Paktika ee wadanka Afghanistan. gabadhiisa curad ayuu si joogto ah baaskiil ugu kaxeeyaa masaafadhan 23 kilomitir, isagoo weliba ilaa 5 saacadood oo kale banaanka hore ee iskoolka ama goobta wax ka barato gabadhiisa ku suga. waana riyo gabadhiisa oo mar uun noqotay mid wax baratay inuu arko, isla markaasina anfacda isaga iyo qoyskiisa. waxa uu yidhi aabahani, waxaan ku noolnahay mushahar maalinla, laakiin waxbarista gabdhahayga aad ayay muhiim iigu tahay, sababtoo ah ma jiro dhakhtar dumar oo jooga aaggayga. waa rabitaankayga ugu weyn inaan waxbaro gabdhahayga sida wiilashayda oo kale. laakiin nolosha aabahan ayaa gabaabsi noqotay iyadoona uu ku guulaystay waxbarista gabadhiisa. waxa uu wajahay caafimaad darro baahsan, kaliyaha ayaa fadhiistay, dhakhaatiirtusa waxay kula taliyeen joojinta isticmaalka baaskiilka. halkaas ayuuna kula baxay magaca halyeygii dhabta ahaa oo si weyn caan uga ah wadanka Afghanistan. fursadaha waxbarasho ee gabdhaha ayaa si weyn ugu soo hagaagay Afghanistan wixii ka dambeeyay 2001 markaas oo meesha laga saaray taliskii Daalibaan, iyadoo malaayiin gabdho oo reer Afghanistan ah ay fursado u heleen inay aadaan dugsiyada iyo iskoolada iyo goobaha wax lagu barto. laakiin weli waxaa jira caqabado ka jira meelaha miyiga ah si gabdhuhu iskuulka u aadaan, qaarkoodna ay yihiin nabadgelyo la'aan, macallimiin la'aan iyo mararka qaarkood diidmo ka timaada xubnaha qoyska iyo ururada xagjirka ah ee ka jira wadankaasi oo aan ogoleen waxbarista hablaha.